Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada channel Romani Media. Magaceyguna waa Cabaas Mustaf. Waxaan maanta muuqaalkeenu ku soo qaadan doonaa dalka Switzerland. Intaanan muuqaalka u guda gelin, like saar videogan wuxuu naga saacidi karaa YouTube-ka inuu dad badan gaarsiiyo. Switzerland waa dal yar oo dhaco bartamaha Yurub. Waa mid ka mid ah wadamada tusaale oo ah dadyoga kalisirka ay ku nool yihiin ama dalalka nidaamka dawlad qaybsiga ka jiro. Waa dal gibiisa ka yar maamulka Galmudug. Markii Soomaaliya 13 qaybood loo qaybshay dhulkeeda, qayb ka mid ayuu ka sii yar yahay. Waxaana ku nool dad lagu qiyaaso ilaa 8 milyan oo qof. Waa kala bar dadka Soomaaliya ku nool. Inta u badan wuxuu u qaybsan yahay dalku 4 qaybood oo 4 kala isra ay kala degan yihiin. Afartaas qowmiyadood waa dalka Jarmalka, Faransiga, Itaaliyaanka iyo Roomanshiga. Dadka Jarmalka ah ayaa ugu badan oo dalka ka ah wax ka badan 60%, halka Faransigu ka yahay wax ka badan 20%, iyo Itaaliyaanka ka ah ku dhawaad 10%. Sidoo kale waxaa la degaa dadyoga kale oo kala isar ah. Waa dal dhulkiisa buurley ah oo 60% waa buuro wadanku. Sidoo kale ma laha booska badda waxa ugu jiro ilaa 7,000 oo harooyin uu leeyahay dalku. Caqabadihiisa kama hor istaagin in Switzerland noqoto dal dunida hormuud u ah markii laga eego dhaqaalaha, heerka nolosha, aqoonta, wax soo saarka iyo dakhligaba. Dalka sidaasi oo dhulka yar iyo dadka yarba wuxuu ka dhaqaale badan yahay in ka badan 180 dal oo ay ka mid yihiin dal kastoo Afrika dhaca. Wuxuu ka dhaqaale badan yahay isku darka dhaqaalaha wadamada Masar, Algeria, Ethiopia iyo dalal kale. Wuxuu ka dhaqaale badan yahay dalalka ay ka mid yihiin Pakistan, Iran, UAE, Bangladesh, Saudi Arabia, Turkiga, Argentina iyo dalal kale badan. Waa dalka 18aad ee ugu dhaqaalaha badan dunida. Waa dal aad u hal abuur badan oo waxa loo aqoonsan yahay inuu yahay dalka ugu hal abuurka sare ee dunida. Waa mid ka mid ah dalalka ugu amnisan uguna nolosha sareysa dunida. Magaalooyinka Geneva iyo Zurich oo ka mid ah magaalooyinka dalkaas ayaa loo aqoonsan yahay labada magaalo ee ugu nolosha wanaagsan dunida. Dakhliga soo gala dadkiisa waxaa lagu qiyaasaa sanadkii 86,000. Waa dalka saddexaad guud ahaan caalamka. Sidoo kale Switzerland waa dal leh dadka ugu badan ee qaangaarka ah ee hantiilayaasha ah. Xog aruurin ayaa muujinaysa in qof kastoo qaangaar ah ee dalkaasi ku nool oo ugu yaraan haysto 100,000. Waa dal aad u nolol qaalisan, haddana dadkiisu haystaan wax walba ay u baahan yihiin sida caafimaadka, shaqada, waxbarashada iyo amniga. Sidoo kale waa dalka afraad ee dadka ugu cimriga dheer hoygu ah. Cimriga dadka Swiss-ka celcelisaan waxay gaaraan ilaa 84 sano. Waxa uu sii dheer in Switzerland heerka horumarka aadamaha HDI-da ay tahay dalka kaalinta labaad kaga jira caalamka. Waa dal hoy u ah shirkado aad u badan oo ganacsi ah. Zurich oo qura ayaa ku yaal in ka badan 150,000 oo shirkadood. Waxyaabaha ay Switzerland caanka ku tahay oo ay soo saarto waxaa ka mid ah daawooyinka, qalabka tiknoolajiyadda, shukulaatada, agabka la isku qurxiyo iyo kiimikada kale. Waxay leedahay shirkado badan oo dhaqaalahooda kor u dhaafeen 50 bilyan. Dhanka aqoonta waxay ka gaartay heerkii ugu sareeyay jaamacadaha Switzerland. Waa kuwa Yurub ee ugu heerka sareeya. 113 qof oo ku guuleystay biladda Nobelka ayaa ka baxay jaamacadda dalkaas, waana dal ka mid ah kuwa ugu badan ee biladdaas qaatay. Waxyaabaha cajiibka ah Switzerland u gaarka ah waxaa ka mid ah inay tahay dal nidaam bandhigyada aad u horumarsan oo keed u ah hanti badan oo dibadda laga leeyahay. Goobaha ilkaha lagu daaweeyo ee dalkaasi ku yaal waxaa ka badan bandhigyada dalkaasi uu leeyahay. Waxaa kale Switzerland ee dadkeeda u diyaarisay goobo ay ka geli karaan haddii dagaal nuclear la isku adeegsado oo uu dunida ka qarxo. Goobahaasi waxay qaadi karaan dhammaan dadkeeda. Waa dal 25% dadka wadanku ku nool ay yihiin ajaanib, 80% Yurubta ka timid. Waa mid ka mid ah dalalka ay ku nool yihiin ajaanibta ugu badan. Shukulaatada ayaa ah waxyaabaha ugu badan ee dalkaasi laga cuno. Sidoo kale waa dal ay ku nool yihiin dadka ugu yar ee cayilan ee qaaradda Yurub ku nool. Waa dal xadida shaqo la'aanta ay aad ku hooseyso. Waana dal ka mid ah wadamada mushaharka ugu badan baxsha. Qofka shaqaalaha ah ee Switzerland ku nool waxaa soo gala sanadkii celcelis ahaan 57,000. Waa xadid aad u sareeya, taasoo keentay in shaqaale badan ay yimaadaan dalka. Waxyaabaha Switzerland ka sharciga ka ah ayaa ah qofka in laga caawiyo inuu isdilo oo loo sameeyay hab oo si fudud ugu dhiman karo. taasoo keentay inuu dad badan oo dibadda ka yimaadaan oo doonayaan inay isdilaan ee dalkaas gaaraan.
Ma u malayn kartaa in dad lagu qiyaaso 550,000 oo qof ay ku nool yihiin xaddiga faqriga ee dalkaas, kuwaasoo halkii qof ay soo gashay bishii 2,300 lacag ku dhow, halka qoysaska ay soo galaan 4,000 lacag dhan. Haddana dadkaasi waxay kaga diiwaan gashan yihiin inay dalka ku nool yihiin faqri. Dal ka yar mid ka mid ah gobollada Soomaaliya baaxad ahaan ayaa ka dhaqaale badan dowlado badan oo saameyn ku leh dunida, kana nolol wanaagsan. Ogow in dalkaasi dad kale Israa'iil ku nool yihiin oona isku si xitaa aysan wax ku baran.